السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحبيال meel kasta aad dunida ku joogtaan kusoo dhawaada barnaamijkeenii falanqaynta Wanixbet maanta asxaabay waxaan sharaxi doonaa hal mowduucaas waxaan soo weydiiyey asxaabta ku xiran page-ka waxayna nagu reebeen barta hoose ee commentiga marka adigana wixii aad fahmi weyso ama wixii kugu cusub waxaan rajeynaynaa inaad nagu reebi doontid qaybta hoose ee commentiga haddii aan hore u gadagalno asxaabta ay su'aasha inay soo weydiiyeen ee qaybta commentiga nagu reebeen marka koobaad horta waxaa taabanaysaa marka koobaad waan ku calaamadeyn doonaa insha Allah marka koobaad waxaad ku dhufanaysaa saddexdaas fallaar marka ku dhufato intaan ayuu kuu soo saaraya intaan marka ay kuu soo saaro waxaad sameynaysaa ama halkan haba ka aadinba waxaad sameynaysaa hal team ayaan inka tusaa asxaabta qof kamid ah ayaa isoo weydiiyey tiimamkan maanta meesha yaal ayaan ka fiirinaynaa optionkaas sida loo dooranayo horta waxaad ku dhufanaysaa tiimamka meesha ku saar hal mid oo kamid ah ama sports ka raadi ama kuwa meesha saaran iskaga dhufo ciyaar uun soo gelin ayaa laga arki karaa ciyaartan Deportivo Alaves iyo Real Betis way tan ayaan ku fiirinaynaa markii saan soo baxdo san markaad ugu dhufatid intaan ku soo baxdo waxaad u soconaysaa qaybta hoose waxaad aadaysaa qaybta hoose ayaad aadaysaa waad soconaysaa waxaan raadinaynaa meel ay ku qoran tahay goal in row by single time hoose wali u soconaynaa wali cabaari jirtaa waa soconaynaa waatanaa meeshan ay ku qoran tahay goal in row by single time ayaad ku dhufanaysaa waan ku calaamadeyn doonaa halkaas ayaad ku dhufanaysaa markaad halkan ku dhufato waatana asxaabta su'aashina soo weydiiyeen optionadan ayuu soo saaraya markaa furto halkan waxaa ku qoran two of or more yes laba gool oo isku xigto iyo wixii ka badanba hal tiimaa keensan karo waa laba gool oo degdegaho isku xigto labada gool ama ha soo xeeto ama waqti dhow ha yimaadaan ama ha kala dib maraan oo laba gool oo isku xigto waa naqaanaa ma sharaxayno halkan ayna waxaa ku qoran haddii aad 3 or more yes aad dhahdidna meeshan ayna waxaa ku qoran waxay ka tarjumaysaa inay tahay saddex gool isku xigto ayaa labadan team mid kamid ah keensan doona saddex gool ayay isku xigto labadan team mid kamid ah ayaa isku xigti doono ayna sidoo kale meeshan ku muuqato oo ah 4 or more yes lacagta saaran waa ujeedaa waa 14 wax macquul gal ah ma ahan laakiin inay timaado waa laga yaabaa laakiinse boqolkiiba 90 ma imaan karto oo waxaa weeye 4 gool isku xigto labadan team isla dheelay 4 gool isku xigto mid keensan karaa marka macquul maahan marka qaybtan yesta hadooran ayaan ku dhihi lahaa qaybta ugu wanaagsan waa tana dhinacan optionkan weeye meeshan ay ku qoran tahay laba gool oo isku xigto waxay ayna ka tarjumaysaa 2 or more no laba gool isku xigto labadan team mid laba gool isku xigto keensan karta ma lahan waa midan ayna hoosteeda ku taalo oo 3 or more no ayna waxay ka tarjumaysaa saddex gool oo isku xigto labadan team mid dhalina ma jirto saddex gool oo isku xigto labadan team mid la imaana ma jirto waa ayna 4 na waa ujeedaa waxay la mid tahay ayna 4 gool oo isku xigto team keensana ma lahan noodaas waa 4 no macnaha waxay ka tarjumaysaa waa ka warqabnaa
team 4 gool isku xigta keensana ma lahan. Marka meesha ugu fiican oo la doorto ayaan kuu sheegayaa. qaybtan waxaa la doortaa qaybtan oo nooda ku jirto ayaad saddexdaas ama 2 ama 3 ama 4 ayaad dooranaysaa. haddana midda ugu fiican ayaa waxay tahay inaad dooratid 3 or more no 3 gool oo isku xigto teamkeena ma lahan. taas inaad doorato ayaa wanaagsan oo sababtoo ciyaartan markay sidaan u socoto gool team isku xiji karo 3 gool oo team awood leh markuu team yar u baxa waa macquul gal, laakiin laba team oo iska awood dhow ama isku awooda macquul maahan inay 3 gool isku xijiyaan. marka asxaabta maanta cashirkeena waxa uu ku saabsanayay goal in row by single team maxaa la yiraahdaa. asxaabta ayaa isoo weydiisay oo qaybta hoose commentiga inoogu reebeen. marka adigana sidoo kale wixii aad fahmi weyso waxaad noogu reebi kartaa qaybta hoose commentiga ayaa ka fiirin doonaa. marka asxaabta cashirkeena maanta wuxuu noogu egyahay intaas. wixii aad ka fahmi weydana waxaa waaye waa nala soo xiriiri kartaa, qaybta hoose ayaad igu soo reebi kartaa. marka asxaabta waxaan idiin rajeynayaa optionkaas cusub inaad haddi ka bacdi aad ciyaaraha ka dhigi doontaan. waana option macquul gal ah, boqolkiiba 90 win ayuu noqonaa. anigana hadda kula hadlayo ayaa ciyaaraha saarto. marka waxaana optionkaas uu fiican yahay 2 team oo isku awooda ama 2 iska awood dhow ayaa la saarta, laakiinse team awood yar iyo team awood weyn ha saaran ayaan ku dhihi lahaa. marka asxaabta waxaan idin rajeynayaa khayr badan. asxaabta videogan haddii uu ku soo gaaro waxaa laga codsanayaa inaad like saarto siina share gareyso si aan u helno asxaab adiga oo kale ah. hana ilaawin inaad kanaalka subscribe saarto oo halkan nagula soo biirto.